Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Hay wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan. Waa habeenimo Khamiis ah bisha Juun ay sii galayso 29 sanada 2023. Qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ciidamada deegaanka oo caawa isaga baxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuwaas oo sheegay inay guud ahaan xilligan aanay ku qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan iyo weliba cabashooyin ay ka muujiyeen qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka SSC Khaatumo ee dagaalka adag kula jira kuwa Somaliland ee magaaladaasi Laascaanood ay gacan ku haynteeda isku hayaan, iyo ciidamadaasi halka ay aadeen ayaan eegi doonaa ee ay magaalada Laascaanood uga baxeen. Dowladda Sweden waxa ay rukhsadda oggolaanshaha siisay nin abaabulayay mudaharaad lagu gubayo kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo weliba cadho xooggan oo ka dhalatay waddankaasi iyo dunida Muslimka ah oo aad uga falcelisay ayaan eegi doonaa dowladda Sweden oo baryahanba abaabulaysa guud ahaan falal nacayb iyo weliba kicina, iyo hogaamiyihii mucaaradka ee waddanka Ruushka oo ilaa iyo haatan meel uu jaan iyo cirib dhiga la la'yahay iyo wadamada la tuhmayo inuu joogo. Qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamijka habeenimo ku maqli doontaan. Saaxiibayaal soo dhawaada. Aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka SSC Khaatumo ay caawa isaga huleeleen ama isaga baxeen magaaladaasi Laascaanood, kuwaasi oo ka cadhaysan ama guud ahaan ka cabanaya qaar ka mid ah saraakiisha ciidamadaasi oo ay sheegeen in aanay waajibaadkii loogu talagalay gudaneyn. Dagaaladii adkaa ee ka dhacay magaaladaasi Laascaanood labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay in khasaare aad u ba'an uu labada dhinacba ka soo gaadhay, balse saraakiil ka mid ah ciidamada SSC ay ku dhinteen dagaalkaasi. Walow dagaalada qaar ciidamada SSC la sheegay inay ku gacan sarreeyeen, haddana ciidamada SSC Khaatumo ayaa iyaga laftoodu khasaare soo gaadhay, waxaana dagaalkii ka dhacay galbeedka magaalada Laascaanood la sheegay inay kaga dhinteen saraakiil ciidamada Khaatumo, gaar ahaan ciidamada uu hogaamiyo Cabdi Madoobe oo Somaliland ay u aqoonsan tahay ciidan argagixiso ah, ayaa waxa ay guud ahaanba sheegeen inay lumiyeen mid ka mid ah saraakiishii ugu muhiimsanaa oo lagu magacaabi jiray Cumar Aadan. Sarkaalkaasi oo la sheegay inuu ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Si kasta oo xaalku ahaadaba, mid ka mid ah saraakiisha ku sugan magaalada Laascaanood ee ciidamada SSC oo caawa la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in aanay sidan kusii socon karin, islamarkaana loo baahan yahay in guud ahaanba wax ka beddel lagu sameeyo qaabka ay ku dagaalgalayaan ciidamada Khaatumo iyo weliba saraakiisha ciidanka oo qaar ka mid ah oo cabasho ka muujiyay, iyo garaadada oo sidoo kale qaar ka mid ah garaadada oo sidoo kale u cambaareeyay. Waxaa guud ahaan soo baxaya xogahaasi sheegaya in ciidamadii ka yimid dhanka Buuhoodle ay doonayaan inay magaaladaasi isaga baxaan oo ay dib ugu laabtaan magaalada Buuhoodle. Waxa ay xogaha qaar tilmaamayaan, walow aanay ahayn kuwo la hubo, in ay ciidamada SSC Khaatumo qaar ka mid ah ay ka cabanayaan saanada oo ku yar iyo weliba hubka oo la sheegay inuu gabaabsi ka yahay xilligan. Inkasta oo dagaaladii adkaa ay ka dhacay magaalada Laascaanood labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada Khaatumo jilibka ku aasteen oo ciidamada Somaliland la sheegay inay soo dhaafi waayeen difaacyadii ay qoteen ciidamada Khaatumo, haddana waxa ay ciidamadu u baahan yihiin in lala soo gaaro gurmad dhanka saanada sida wararku ay tilmaamayaan, taasi oo haatanba bilaabatay in qaar ka mid ah ciidamada ay ka cawdaan arrimahaasi iyo weliba kuwo kale oo ku tilmaameen in saraakiisha qaar oo caajis iyo weliba cagajiid badani uu ka muuqdo. Saraakiisha caawa saxaafadda la hadashay ayaa waxa ay sheegeen qaar ka mid ah inay dib ugu laaban doonaan magaalada Buuhoodle, halkaasina ay guud ahaan fadhiisimo kale ka samaysan doonaan oo ay magaaladaasi difaacan doonaan, halka magaalada Laascaanood ay sheegeen inay uga tegi doonaan ciidamada haatan ku sugan ee Khaatumo qaybahooda kala duwan ee kale. Magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaan haatan ahayn furin dagaalamo guud ahaanba meel uu dagaal ka socdo, oo ciidamada Somaliland ayaa goor horeba baneeyay meelihii ay ka joogeen magaaladaasi Buuhoodle iyo guud ahaanba gobolkaasi Cayn, waxaana magaalada haatan furinta ah ee dagaaladu ay ka socdaan oo guud ahaan gacan ku haynteeda la isku hayo ayaa ah xarunta gobolka Sool, magaalada Laascaanood oo ku dhowaad sanad uu dagaal xoogani ka soconayo. Si kasta oo xaalku ahaadaba, weli waxa ay ciidamadani la sheegay in waan iyo wadaxaajood laga dhex wado, la doonayana in magaalada ay kusii sugnaadaan, balse haatan ay goosteen inay magaaladaasi isaga baxaan oo ay halkaasi ka huleelaan. Ciidamo fara badan oo ka yimid dhanka maamulka Puntland ayaa horey uga baxay magaalada Laascaanood, waxaana haatan tani ay noqonaysaa mid kale oo dhabarjebin ku noqon karaysa ciidamada Khaatumo oo weli isdifaacaya doonayana in magaaladaasi ay sii haystaan.
xogaha qaar ayaa tilmaamaya in Somaliland ay caawa bilowday dhaqdhaqaaqyo ay ku dooneyso in ay mar kale weerar kusoo qaado magaaladaasi Laascaanood isla markaana ay ka faa'iideysato haatan fursadaha muuqanaya ee ah in qaar ka mid ah ciidamada Khaatumo ay sheegeen in magaaladaasi ay isaga bixi doonaan iyo weliba khilaafkaasi kooban ee soo kala dhexgalay ciidamada iyo saraakiisha Khaatumo. Inkasta oo xogaha qaar ay tilmaamayaan in haatanba la bilaabay dhexdhexaadin iyo weliba in labada dhinac la isku soo dhaweeyo. waa tahay haatan aan eegno wadankii Sweden oo guud ahaan haatan wada olole xooggan oo ku doonayo in muslimiinta caalamka uu ka cadhaysiiyo iyo guud ahaan in uu falal nacayb ah uu dalkiisa ku faafiyo ayaa booliska dalka Sweden ay howlgallo amni xaqiijin ah oo ay ka wadeen caasimadda wadankaasi Sweden ee Stockholm kadib markii ay ansixiyeen codsi mudaharaad ah oo qabanqaabiyaha uu qorsheynayo in lagu gubo kitaabka Quraanka Kariimka. Waxaa lagu wadaa in lagu qabto banaanka masaajidka weyn ee magaalada. Waxa ay daba socotaa go'aano maxkamadeed oo ah in boolisku ay ku qaldanaayeen inay ka hortagaan isu soo baxyadii dhowaa ee la qorsheeyay inay lagu gubo kitaabka Quraanka Kariimka. Maxkamadda ugu sareysa ee wadankaasi Sweden ayaa waxa ay sheegtay in booliska wadankaasi Sweden ay khalad galeen isla markaana ay guud ahaan ka hor yimaadeen in ay gubaan kitaabka Quraanka ah. Kooxahaasi mucaaradka ah ee haatan sameynaya mudaharaadyada waaweyn waxaana maxkamaddu haatan ay ogolaatay in kooxahaasi meel walba oo ka mid ah magaalada caasimadda ee Stockholm ay ku gubi karaan kitaabka Quraanka isla markaana ay mudaharaadyo waaweyn ka dhigi karaan meelo badan oo ka mid ah wadankaasi Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm ee caasimadda dalkaasi. Wadanka Sweden ayaa marar fara badan waxa uu sameeyay falal noocan oo kale ah waxaana booliska wadankaasi iyo guud ahaan maxkamadaha iyo dowladda dalkaasi Swedenba ay isku raaceen in ay falalkaasi nacaybka iyo kicinta iyo weliba ka cadhaysiinta dadka muslimiinta ah ay ku soo celceliyaan si ay arrimahaasi guud ahaan u noqdaan kuwo caadi ka noqda wadankaasi Sweden iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka. Balse waxaa muslimiinta ku nool dalkaasi Sweden iyo weliba qaar ka mid ah muslimiinta caalamkuba haatan la sheegay inay iyaga laftooda qorsheynayaan tallaabooyin ay doonayaan inay wadanka Sweden ku tusaan in muslimiinta dunidu ay awood leeyihiin isla markaana arrimahan haatan ay sameynayaan iyo weliba kuwo kale oo ka waaweynba aanay waxba ka tari doonin diinta Islaamka iyo weliba awoodda sii kordhaysa ee dadka muslimiinta dunida. Sweden ayaa waxa ay dooneysaa inay ka hortagto guud ahaan faafitaanka diinta Islaamka iyo arrimaha Islaamka iyo weliba dadka muslimiinta ee dunida kusoo badanaya iyo awoodana kusii yeelanaya. Waxaana haatan wadanka Sweden uu qaaday tallaabo kasta oo macquul ay tahay in ay dadka muslimiinta ahi ay ka xanaaqaan ama ay guud ahaan diinta Islaamka fiditaankeeda ku yareyn karaan iyagoo arrintaasi uga jeeda in ay ka dhigaan dadka muslimiinta inay yihiin dad daciif ah oo aan diintooda difaacan karin ama guud ahaanba ay waxay doonaan iyagu ka samaysan karaan. Wadanka Turkiga ayaa horey waxa uu Sweden ugu diiday inay kusoo biiraan NATO isagoo ku eedeynaya in Sweden dhaqankoodu uu xun yahay oo aanay ahayn dad guud ahaan ay la shaqeyn karayaan ama ay la macaamili karayaan. Waxaana Turkigu uu markaasi ka dhex arkayay wadanka Sweden inuu yahay mid ka mid ah wadamada ugu liita dunida oo xitaa aan isdifaaci karaynin haddii weerar lagu soo qaado. Ay doonayaan in iyagoo sidaasi ah ay haddana dad intaasoo bilyan ah ay doonayaan inay ka cadhaysiiyaan mar walba oo ay arrimo aanay jeclaysan ay sameynayaan. Waxaana Turkigu uu guud ahaanba diiday in wadankaasi Sweden uu kusoo biiro ama uu xubin ka noqdo wadamada gaashaanbuurta NATO. Akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.